cilmu nafsigu waxa uu ku leeyahay kow markaad xasuusato qof aad horay u jeclayd ogow qofkaas inuu isna ku jecel yahay. labo haddii aad isku aragto adiga oo bilaa sabab murugoonaya ogow inuu jiro qof kuu dhow oo aad kuu jecel adiga. saddex haddii aad mar walba rabto inaad qof qalbigaaga ka saarto aadna ka saari la'dahay ogow inuu qofkaas isaguna naftirkiisa kaa fakaro. afar haddii aad aragto qof mar walba sabab la'aan u qoslaya ogow inuu jiro wax xanuujinaya ama murugo haysata. shan dumarku waxa ay qarin karaan jacayl ay qof u hayaan muddo 40 sano ah balse ma qarin karaan nacayb ay qof u hayaan muddo 1 saac ah. lix bini'aadamka waxa inta badan haga dareemahooda waxaana yar inta ay hagto maskaxdoodu. toddobo laba qof indhahaaga ma eegi karaan mid jacayl kaa qarinaya iyo mid been kaa qarinaya. sideed hooyooyinku waxay u dulqaadan karaan oohinta ilmaha labka ah ama wiilka ah in ka badan inta ay u dulqaadan lahaayeen midda dhadiga ah ama gabadha ah. sagaal 30% oo dadka ka mid ah kuma qoslaan waxa ay ka sheekeynayaan xitaa haddii dadka ay u sheekeynayaan ay qoslaan. haddaba daawade qodobkeed ka heshay like dhe muuqaalkan sidoo kalena nagu dhiirageli inaad muuqaalka inoo sheer garayso ama koobi linkiga aad noo taabato. mahadsanid.